صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa barnaamijkeenii duruus ramadaaniya, waa xalaqadeenii 16aad. xalaqadan waxaan ka hadli doonaa samirka, ayaan ka hadli doonaa bishan aynu ku jirno ee barakeysan ee ramadaanka, in ay tahay bishii samirka. la rabo in cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ahaa lagu sabro. samirka wuxuu leeyahay 3 nooc ayuu ka kooban yahay. qodob koowaad ayaa ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa lagu sabro, maadaama hadda aynu ku jirno bisha barakeysan ramadaanka oo dadku muxuu ahaa ay gaajeysan yihiin, ay haraadsan yihiin. waxaa la rabaa haraadkaas iyo gaajadaas in loo gagsado, in loo sabro ayaa la rabaa, oo cibaadada ilaahay, daacada ilaahay dhan lagu sabro. salaadaha xilliyada qabowga la soo kacayo, muxuu ahaa masaajidka la aadayo, acmaasha khayriga ah oo muxuu ahaa nafsada ay kahanayso, ay dhibsanayso, qofka inuu daacada ilaahay uu ku sabraa ayaa waxaaba ka mid ah noocyada samirka. marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu muxuu ahaa aynu aad iyo aad runtii u dulqaadano oo muxuu ahaa cibaadada lagu sabro yaa muhiim. marka qodobkaad wuxuu yahay in daacada ilaahay lagu sabro. qodobka labaad yaa ah in wax waliba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala macsidiisa iyo muxaramaadka ahna in laga samro gabi ahaan, oo foolxumada iyo wax walboo dembi keenaya iyo muxuu ah xaaraamta waxaasoo idil qofka muslimka inuu ka sabro oo iska daayo gabi ahaan. qodobka saddexaad yaa ah qofka inuu ku sabro qadarta ilaahay, inuu ku sabro wax walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa ah, ilaahay qadihiisa ah. waxaa la rabaa qofka muslimka inuu ku sabro, ayadana waa muhiim. marka muxuu ahaa daacada ilaahay lagu sabro, macaasidii foolxumada laga sabro, iyo qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu sabro. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu ka hadlay samirka, axaadiis fara badan ayuu kaga hadlay. xadiiskan aan soo qaadan doonaya, nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: wamaa ucdiya axadun cadaa'an khayran wa awsaca min asabr, aw kama qaala sala allah alay wasalam. nabigu wuxuu leeyahay yacni wax samirka qof lama siinin, wax samirka ka khayr badan oo ka waasacsan qofka lama siinin. marka ilaahay qofka uu siiyey samir, uu siiyey runtii waxaa la siiyey wax aad iyo aad u weyn ayaa la siiyey. marka waxaa la rabaa qofka muslimka inuu ogaado in muxuu ah samirka uu yahay wax qaali ah, oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana muxuu ah qofkaas samrayana ilaahay maalinta yawm alqiyaama uu abaalgudayo, abaalgud ilaahay soo siina subxaanahu wa tacaala. sidoo kale suuratul casri waxay ka sheekeynaysaa insaanka, walcasri ina alinsaana lafii khusr. insaanku waxaa la khasaare ku sugan yihiin. waxaa laga soo raba ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. waxaa insaanku khasaare ay ku sugan yihiin ilaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey mooyin, oo camal wanaagsan la yimid, haddana muxuu isu dardaarmay xaqa, isu dardaarmay iyo samirka. marka samirku waa muhiim walaalayaal. marka waxaa muhiim inaynu isu dardaarno had iyo jeer samirka, oo in muxuu ahaa dadka ay sabraan, oo muxuu ahaa adduunyadan waa daaru imtixaan, waa meel dhibaato fara badan. marka waxaa la rabaa qofka muslimka had iyo jeer inuu kaalmeysto samir, wastaciinuu bisabri wasalaah. ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala in marka samirka la kaalmeysto. ilaahayna mar walba muxuu dadka saabiriintu la jira, in allaha maca saabiriin, dadka sabra muxuu ahaa dulqaadanayo ilaahay la jira subxaanahu wa tacaala. sidoo kale xadiiska nabiga wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam: cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min, aw kama qaala sala allah alay wasalam. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskan, arrinka qofka mu'minka arrinkiisa ayaan la yaabaa. maxaa arrinkiisoo idil waa khayr.
arrinta ayadana qof mu'min oo cid kale uma sugnaa karto nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam in asabatu saraa shakara fakana khayran lah hadii xaalad wanaag uu helo ilaahi subhanahu wa ta'ala ayuu ku shukranaa oo mahad celinaya arrinta khayr oo noqonaysa wa in asabatu daraa sabara fakana khayran lah hadii xaalad dib badan uu galana ilaahi subhanahu wa ta'ala ayuu muxuu ahaa yu sabraya oo dul qaadanaya arrintaas khayr oo noqonaysa marka xamiim qofka muuminka had ijar waxa rabaa inuu ahaado qof saabir ah oo cibaadada ilaahay ku sabra oo daacada ilaahay ku sabra yaa la rabaa marka walaalayaal naftayda iyo tiin waxaan daarmayaa inaynu samirka ku dadaalno wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh